kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliyeed waxyaabaha maanta laga hadlay waxa kamid ah guud ahaanba arrimaha amniga sida la ogsoon yahay ba kadib markii uu iscazilay madaxweynihii Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan xilkana uu ku wareejiyay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isugu yimaadeen odayaasha iyo kusimaha madaxweynuhuba sidii guud ahaanba loo sugi lahaa amniga sida la og yahay ba marka ay dhacayaan isbedelada siyaasadeed guud ahaanba waxa laga yaabaa in cadowga reer Koonfur Galbeed Soomaaliya asagoo shaatiyo badan leh uu soo gabado waan ognahay in dhibaatooyin badan ka geysanayaan ayna qorsheynayaan in qaraxyo iyo dhibaatooyin badan ay ku sameeyaan guud ahaanba madaxweynuhu wuxuu kala hadlay dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaashaba in guud ahaanba ay amnigooda inta ay ku mashquulsan yihiin doorashada uusan khalkhal galin amniga la wada sugo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxyaabaha kale oo la isla soo qaaday waxa kamid ah in doorashadu Ilaahay idinkii sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qabsoomi doonto maalmaha soo socdana la sheegi doono guddigii doorashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya qaybtii iscasiishay mooyaane qaybta kalena si toos ah loo shaacin doono sida loogu talagalay qorshaha uu ahaana sida ugu fiican oo ugu wanaagsan doorashadu ay u dhici doonto odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay sheegeen in doorkooda saliimka ah ee odaynimo ay qaadan doonaan doorashadana ay garab istaagi doonaan sidii ay si nabadgelyo ugu dhici lahayd iyadoo hagidda iyo hogaaminta doorashadana ay madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay yihiin hagayaasha doorashadan sida ay u dhacayso sida la og yahay ba dadkeennu markay xaaladaha noocan ah abuurmaan walaahow badan baa jiro waxaan rabnaa dawladnimadeennu inay jirto reer Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ogaadaan waxa meesha ka baxay inuu ahaa madaxweynihii 4 sano dalka hogaaminayay laakiin dawladnimada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sideeda u jirto lana rabo hadii alla idmo iyadoo sideeda in lagu wareejiyo madaxweynaha mustaqbalka la dooran doono waxaan ka codsanaynaa dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan dadka reer Baydhabo shacabka inay la shaqeeyaan dawladda kala shaqeeyaan arrimaha amniga haddaan amnigeena intaan dhinac iska dhigno doorashada aan ku mashquulno adawgii ummadda Soomaaliyeed gumaadayaashii dadkeena haddana waxay diyaar u yihiin inta aan kala dhacsanahay inay dadkeena haddana ay gumaadaan in la shaqeeyo hay'adaha amniga sida booliiska iyo militariga oo aan ognahay awoodda ugu weyn oo maanta amniga magaalada Baydhabo hayso marka amisom laga reebo inay yihiin booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed in si toos ah loola shaqeeyo waxaan rabnaa inaan dadkeena u sheegno doorashadu waa ay dhacaysaa haddii alla idmo waqtigeedayna dhacaysaa technicality iyo farsamada ugu hooseyso iyo sida ay wax noqon doonaana bidnillaahi tacaala gudoomiyaha baarlamaankan ka sugeynaa baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya meel kastoo joogaanba mas'uuliyadda dalkan maanta iyagay saaran tahay waxaan ka codsanaynaa inay u midoobaan dawladnimadii aan soo haysanay meesha ay joogto inaynu hore uga sii dhaqaajino qofna kalarkiisa midabkiisa iyo shakhsiyadiisa lagulama dagaalami karo reer Koonfur Galbeed baa iskala Koonfur Galbeed cid walba oo la doortaana waxay xaq u leedahay in la shaqeeyo gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu xaqiijiyay in maalmaha soo socda berito masaa dambe la soo magacaabi doono guddigii ka dhinaa guddigii iscazilay Ilaahay idinkii lana socodsiin doono processkii doorashada waxaan codsanaynaa gudoomiyaha ama madaxweynuhu uu codsaday baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay deganaansho badan muujiyaan uuna sheegay albaabadu inay u furan yihiin cid kasto oo talada doorashadan meel wanaagsan in la geeyo kala talinaysana baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya in har iyo habeenba ay u imaan karaan lana talin karaan una ogol yahay in talooyin badan oo dhinacyo badan loo keeno laakiin se waxaan xaqiijinaynaa doorashadii waa ay dhacaysaa goorta ay dhacayso ma 17 ama maalin iyo labana madaxweynaha ahna kusimaha madaxweynahan ka sugeynaa waxaan rabnaa baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay isdejiyaan isku aragti baynu nahay dawladnimada u